السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran channelkana YouTube ee Garaadso isku soo noqod wanaagsan wali waxaynu ku guda jirnaa barashada video editing software-ka lagu magacaabo After Effects maanta waxaan maraynaa casharkeena lixaad waxaan ku baran doonaa basic logo animation qaabkan u dhaqaajinayna loogadan hadda hortiina ka muuqata magaca iyo loogada qaabka u soo baxayaan ku soo dhawow cashar sidaan u sameynayo loogadii hadda aad arkaysay ma dhibadna waxaan ku rajeynayaa inaad isku daydid waxa aan isticmaalayana waa hal background iyo loogadaas adigu diyaarso hadda meeshaad ka keentid weeyaan background-kana waa kuu soo diraya haddii aad looga leedahay loogadaada isticmaal midda kalena waxa weeyaan haddii aad shantii cashar hore soo daawatay waxyaabo yar oo dheeri ayaa maanta kuu soo dari doona casharka mooye wax saas u baxsan oo kale oo aan isticmaalaynaa ma jiraan marka koowaad new composition waa muhiim inaan samaysano waxaan ku qoran doonaa magac halkan oo kale waxaan ka dhigi doonaa Garaadso logo maadaama aan Garaadso ku sameynayo halkan waa sax waa 19 iyo 20 oo pixelka ah height waxa ka dhiganaysaa 10 iyo 80 sida hore uu sheegnay halkan hadii ay ku tahay 29 waa frame rate-ka waxa ka dhiganaysaa 30 ka dhigo saacadaha ama daqiiqadaha sekimada aan qaadanayna waa 10 second loogadu intaas inay ka badan tahay ma fiicna marka 10 second ayaan ku sameyn doonaa colorka aan qaadanayo hadda waa colorkan meelahan oo kale color iska qaado adigu anigu midabkan ayaan iska doortay kadibna okay intaas markii aad sameysid adiga aan waxba ku soo shubin marka koowaad waxaad sameynaysaa ama iska soo gasho loogadaadii iyo waxaad ku soo gashanaysaa oo kale background-kii hadda waxaan doonaynaa loogadii iyo background-ka soo geliyo halkan double click waa qaabka u soo gashanayo weeyaan waxaan isticmaali doonaa aan soo gashan doono waa background iyo Garaadso logo waa labadaas bis ayaan isticmaali doonaa waxa kale oo dheeri aan heli doonaa ama meel aan ka soo qaadan doonaa ma jiraan marka ugu horeysa waxaan u baahanahay wax lagu magacaabo solid ama new solid na iraado kale right click kadib waxaan dooranayaa new waxaan tagayaa halka ay ku qoran tahay solid waxaan sameyn doonaa waxa lagu magacaabo background-kaasi wuxuu iga saacidayaa inaan sameeyo kale aan background-kaas meeshan oo kale asagana sidiisoo kale HD-giisa iska ahaado wax dheeri hadda aan ku soo kordhinayaa ma jiraan kaliya waxaan isticmaalaa inaan color u sameysto color-radan oo kale midkood inaan kan oo kale aan iska qaato color-kaasna u sameeyo background magac ku qoro meeshani sideeda ku ahaato dib waxa ka bedelin ama 1920 iyo 1080 marka okay halkaan oo kale markii background uu kaaga soo baxo kadib waxaad soo jiidaysaa marka background-kii aan kuu sheego kale background-kaas oo u koreeya ama background ayaa ku qoran waan ku soo diri doonaa background-ka markii aad soo gelisid kayga waa cadaan qaabkan ayuu egyahay kadib marka horta halkaan oo kale markii aad timaadid waxaad leedahay right click waxaad dooranaysaa columns meeshaan dooro dabcan sidaan kale day ku tahay waxaad sameynaysaa right click tiraadid columns kadibna halkaasi modes inaad dooratid si halkaan ay kugu soo gasho marka qaybtan iyo qaybtan kale afartan qaybood waa afarta waxyaabood ee calaamada tigta ay saaran tahay waa intaan aad arkaysi weeyaan mid walba haddii aan ka qaado halkan ayuu ka bixi doonaa meelahan ayuu ku jiraa waana mid ayaan u arki doonaa marka modes ku soo darsa calaamadaas modes haddii kaa maqan tahay weeyaan haddii kugu jirtana waa okay halkan normal ay ku qoran tahay ayaan bedelaynaa hoos u furo kale ama qaybta falaarta yarta oo kale haddii aad furtid kadib waxaad imaanaysaa halkan waxaana dooranaysaa divide-kaas dooro hadda sidaad u jeedid background-kii data aan midabkiisa blue oo kale ka soo dhigay ama blue aan tiqda ahayn oo kale iyo background-ka ay cadaanka isdhex galeen ayay midabkan quruxda badan ee gudaha ka muuqda ay ka soo baxay hadda background-ka qaabkiisana u sameystay waxaan soo gashanayaa waxa weeyaan intaan u guda gelin loogada haddii aad doonaysid background-ka inaad bedeshid tusaale midabkan blue-ga oo kale ama midab kale ku yahay jeclaysan qaabka background-ka loo bedelo waxa weeyaan halka ay ku qoran tahay layer ayaa tagaysaa kadib waxaad dooranaysaa halkan ay kaaga muuqato solid setting kadib halkan waad u jeedaa midabkii blue-ga ahaa halkan oo kale aad u jeedid cadaan meeshan oo kale ayaad ka arkaysaa u jeedaa midabkii qaabku isku bedelay tusaale hadda waxaan doon cadaankiisa kale waa ka dhigi karaa hadba saa u jeedid marka dhaqaajiyo wala dhaqaaqaya marka halkan oo kale aan ku sameeyo ama guduud oo kale aan u dhaweeyo maadaama halkan oo kale okay midabkan ayaa anfacay okay aan iraado hadda magacii background ee aan ku qoro waa ka bedeli karaa wax walba cabirka data aan si waa ka bedeli karaa marka noocan doonayaan isticmaali karaa markii background-ka aan rabo inaan color ka bedelo hadda waad ila fahantayaan u maleynayaa qaabka background-ka color-ka uga bedelay iyo qaabka aan u soo geliyay background-kan
hadda waxaa inoo dhiman kaliya inaan loogadii aan la soo galo loogadii marka horeba halkaan aan kusoo diyaarsaday waatan meesha itaal waxaan ku qoran gratis logo aan soo jiido halkaan oo kale aan dhigo meesha ugu koraysa si qaabkan ugu soo muuqato kale hadda sidaad u jeedo loogadii xogaa ayay weyn tahay waxaan ku samayn doonaa bal inaan yareeyo haddii ay shaashadan qabsato waxaad samaynaysaa control minus isla qabo sidaad u jeedid geesihii aan ka xakameyn lahaa loogada waa isoo baxeen shaashadana waa iga fogaatay marka qaabkaas kalena waad samayn kartaa control minus oo zoom in ah iyo control plus oo zoom out ah ayaad isticmaalaysaa weeyaan marka waa labadooda mid zoomka soo dhaweysa iyo mid zoomka fogeynaysa control plus iyo control minus hadda waxaan samayn doonaa maadaama aan xogaa iska fogeeyay loogadii hadda geesaha u dheereeyo kale loogada geesaha ay u dheeraan marka halkaan oo kale aan keeno waxaan samaynayaa marka control plus oo soo dhaweyntiya marka okay halkaas ay joogto hadda sidaad u jeedid loogadii qaabkan ayaan keenay halkaas ay oolaanaysaa marka loogada waxaan ku samayn doonaa precomposition waxa lagu magacaabo precompositionka hore u soo dhiganay waa compositionka hadda waxa igu qoran gratis logo igu qoran precompositionkana asagana compositionka ayaa laga dhex sameeyaa casharadii hore waa ku qaadanay gratis logo right click ayaan leeyahay kadib waxaan dooranayaa precomposition oo halkaana waxaan ku qorayaa logo bes logadaas ay ugu qornaato okay hadda waxay ugu jirtaa waxa lagu magacaabo precompositionka wuxuu iga saacidayaa wax weeyaan logadan kaliya haddii aan double click siiyo precompositionka sida wax walba ka bedeli karaan ku sameynaya marka hadda loogada precomposition dhexda ayay ku jirtaa background waa haystaa mid kale oo buluuga saddex haysatid oo aad maraysid waxa kale way fudud yihiin text ku soo darsanaynaa marka hadda waxaan sameynayaa waxa weeyaan inaan ku daro effects aan loogadan effects ku daro inta aan effects ku darin marka koowaad horta halkaan inta right click tiraadid kadibna aad dooratid columns switchkaas calaamada ku saaran ama calaamadaas kala saar haddii uu ka maqan yahay sidaan oo kale ayaa tahay meeshaan oo kale aan ku celiyay mar kale hadda halkaan waxba ka maqno u jeedaa switch markii aan doortana way soo gali doonaa waxba ku soo kordhi doonaa waa kaas calaamadahaas oo dhan marka ku soo darso right click ayaa leedahay waxaad tagaysaa halkaan ku qoran tahay columns kadibna waxaad dooranaysaa switch saddexdan kalena sidoo kale calaamadayso ayayna ka maqnaan marka hadda loogadan waxaa ka dhigayaa 3D kadib effects ayaa ku dari doonaa hadda 3D ayaan qaybtan 3D oo kale ayaan doortay kadib marka waxaan samayn doonaa effects aan ku daro halkan hadda wax calaamad wax ay saaran tahay preview markii hore ama casharadii hore aad la socotay waxay ahayd waxaan ku iri ka soo dhigo halkan default ka soo dhigo aduu oo small screen iyo standard waxa isku yahay default ayaad ka dhiganaysaa si meel walba u baahan tahay aad u dul tagtid marka hadda effects ayaan dul tagay halkaan oo kale waxaan ku qori doonaa waxa lagu magacaabo card web waxaad shaashada ba kugu soo qoray magacaas oo kale ayaad ku dhufanaysaa ama ku qoraysaa halkaan markii aad magaca ku qortid halkaan oo kale ayaad ku qoraysaa card wipe waa halkaan midkan hoose oo kale iyal weeyaan qaabkaas ayuu qoran yahay marka waad soo jiidaysaa waa loogada dhexdeeda ayaad ku deynaysaa waad soo jiidaysaa dhexaas ayaad dhigaysaa bes markii aad dhexdaas dhigtid qaabkaas waa inuu go'go'daa loogadaada ama dee tahay mid circle ama kala gogoyska in halkaas kala go'go'da ayaa la rabaa kadib waxaad samaynaysaa marka halkaan oo kale ayaad iman meesha ay ku qoran tahay 25 waxaad ka dhigaysaa 0 halkaanna waxaad ka dhigaysaa meeshan hoosena sidoo kale waxaad ka dhigaysaa 0 ayadana halkaanna waxaad ka dhigaysaa 0 maadaas daad 0 kasoo itana 0 ka dhig meeshan waxaad ka dhigaysaa 5 iyo 10 ayaad ka dhigaysaa marka halkaas 0 tan waa 01 kaas hadii maxmicna ama 1 isaga iska noqonaya marka 5 iyo 10 marka ka dhigtid oo halkaan oo kale 5 iyo 10 ku tahay kadib halkaan ayaad sikinaysaa marka qaybtan hoose oo kale waxaad geynaysaa ilaa sikika lixaad oo kale labadaas kale waxaan u isticmaali doonaa saddexdaas sikin oo kale textkaan u isticmaalaynaa marka sikika lixaad markii aad maraysid halkaan waxaad ku samaynaysaa marka calaamada stickta ayaad saaraysaa waad buuxinaysaa oo qaybtiya halkaan oo kale u soo noqo marka soo qaad markii aad keyframe u sameeyay sidoo kale ama calaamadaas aad buuxiso sidoo kale halkaan waxaad ka dhigaysaa content halkaan content ka dhig marka waxa aan sameeyay aad faantay waxa weeyaan marka hore 0 ayaa ka bilaabay 0 markii aan dhigay 6 second markii la maraayo waxaan u sameeyay waxa lagu magacaabo keyframe ama transitionkaas iyo calaamadaas dhag ku siiyay halkaas kale ayaan buuxiyay marka hadda waan soo celiyay oo meesheeda keenay hadda wuxuu ka bilaaban doonaa content boqolkiiba content ayuu ka bilaaban doonaa kadib wuxuu tagi doonaa 60 markii la gaaro 6 second markii la gaarana sidiis ayuu ku soo noqon doonaa bal inta inaad la fahanto oo malay marka koowaad 6 second calaamada qaad 6 second gee kadibna halkaan oo kale buuxi soo laaba kadib calaamadan oo kale soo celi halkaan oo kale markii ku joogtay soo celi hadana 0 second markaad keentid kadib waxaad ku sameynaysaa content boqolkiiba inaad halkaas ka dhigtid waad ila fahanto oo malay intaas hadda sidaan ayuu noqon doonaa marka bal wax yar ila fis aan caad u daaro muuqaalkan preview inta tago
kadibna halkaan kala daaro qaabku noqon doono ujeedaa dhaqaaqas ayuu samayn doonaa ilaa 6 second laga tago 6 second markii laga tago oo 6 second ay ku dhacdo kale loogadu waxay noqon doontaa mid dhammaystiran oo caadi ahaanteeda u istaagta hadda marka xarafka u ayaan taaban doonaa u markii aan taabto waxa isoo baxaya card waabkii hadda aan la soo baxo kale marka labadan calaamood si aan u arko ayaa u taabta mooyaan wax kale aan ku soo dari doonaa ma jiro calaamadaas kale markii aan maraayo calaamadiis ugu dambayso kale markii isoo baxo bas aan qiyaastay cabirkiisa hadda aan arkay waxaan isticmaali doonaa xarafka b oo ahaa positionka ayaan waxaan ku samayn doonaa hadda waxaan taaban marka xarafka b ana ay dooran tahay b wixii markuu isoo baxo waa position asagana sidoo kale halkaas kale ayaan samayn doonaa click oo waan buuxin doonaa asagana qayb sidiisoo kale halkan qaybtan ugu dambaysa markaan imaado waxaan ka bedeli doonaa positionka sababtaan positionka u bedelaa waxa weeyaan waxaan doonayaa loogadu inay kor intay ka timaado qaab kor inay usoo gasho waan arki doonaa halkaanan dooran doonaa ama click intaas siiya dhankan u jiido ilaa waxaan ka dhigi doonaa 2600 oo kale ilaa shaashada loogada waxaan doonayaa shaashada inaan ka bixiyo ayaa dhan qaybta kore anaa uga bixiyo qaabkan oo kale hadba dhanka ujeedaa shaashada ayay kasii baxaysaa loogadii ilaa ay ka dhammaato halkan u wado 2600 oo kale ay tegaysaa hadba shaashada hadday weyn tahay ama waxa weeyaan loogada mid weyn waa ka hadda loogadii way ka dhammaatay marka bal aan daaro qaabka ay loogada usoo gelayso fiir kor ayay ka imaan doontaa ilaa ay usoo gasho qaab sidii hore ayoo googo'aysa oo korna ka imaanaysa muhiimaddu marka waa intaas waxa aan positionkiisa u bedelayo aan u dooranayo hadda waa ku guuleysana inaan sameyno loogada iyo qaabkan oo kale kor intay ka timaaday googo'an oo kale haddana isqa qabsanaysa markay booskeeda timaado intaas haddii aad fahantay waa easy oo wax yar weeyaan hadda waxaan ku dari doonaa waxa weeyaan tagasti halkan ayaan imaanaya waxaan leeyahay right click kadib waxaan dooranaya new haddana waxaan siinayaa tagastiga dhexdaas ayaan ku qorayaa ama meeshiisa ayuu qornaadee waxaan qorayaa tusaale gratso kale aan qoro gratso halkan oo kale markii aan usoo jiido waxaan dooranayaa marka koowaad bal videoga wax yar intaan iska joojiyo kale aan iska damiyo kadibna aan doorto gratso text markii aan doorto halkaas dhexe ama calaamadaas anoo qabanaya soo jiidayaa waka soo jiido calaamadana waan ka bedelayaa halkan oo kale calaamadda sidaa doorto qaybtan oo kale ayaan u baahnaa ama halkaas oo kale inaan dhigaan rabaa kadib marka control minus ayaan leeyahay si aan u wada arko waxa dhan meeshan ka socdo kale tusaale aan 6 second geeyo 6 second waad ujeedaa loogadii halkaas ayay ku istaagtay magacan garaadsan waxaan rabaa hoosteeda inuu kasoo muuqdo halkaas oo kale aan control plus ilaad haddana si ay usoo wada baxaan geesaha kale aan kasoo yareynayaa halkaan oo kale markii aan maraayo bes meeshaas kale markii aan maraayo 6 second markay marayso waxaan dooranayaa grades oo u koreysay waa tagastigan waa sikinayaa ilaa waxaan geenayaa caadi ayaan jiidayaa laftigan intaa qabto sikiyo waa layer kaas sikinayaa ilaa 6 second ayaan geenayaa 6 second waka hadda halkaan markii aan muuqaalka daaro kale ama loogadii yaray hadeer wax kama muuqdo grades kama muuqato meeshaas hadda soo baxaysaa waka magacii aad doontad ku qoranaysaa waka hadda soo baxday marka wax yar waxaan ku darayaa marka qayb yar effects ku jira lagu magacaabo 3D effects kan tiraya halkaana waxaan ku qorayaa marka magacii hore ay u qoran iga tirtir kadib waxaa ku qoraysaa marka 3D basic rotate aan ku daro basic ilaa waa midan ugu hooseysa weeyaan oo la socda xarafka y waan soo qaadayaa aydan sidoo kale ay soo jiiday waa dhex dhigay markaas halkaan kala banaan dhaho previews aan tago muuqaalkii aan daaro loogada markay googoodo 6 second oo kale inta googoodo dhameystiranto istaagto kale haddana waxa soo bixi doonaa magacii asna qaabkan kale u soo baxaya waa intaas waa loogada qaabka ugu fudud ee basic ee loo sameeyo marka bal hadda aan save gareysano save gareynta waxa dhib badan ma ah file inta degtid kadib waxa dooranaysaa halka ay ku qoran tahay export kadib qaybtan kore hadii uu kugu jiro software-ka lagu magacaabo Adobe Media Encoder asaga la soo deg oo wuxuu ku jiraa meesha aan kala soo degayna After Effects waad ka helaysaa karaagi waxaas uma baahna installs ayuu baahan yahay qaybta hoose linki waxaan ku dhigay halkii aad kala soo degi lahayd Adobe Media hadii aad soo ku dhufatid qaab video caadi ah ayuu kula soo degi doonaa casharada kale ayaa ku sharaxi doona qaabka aan video kula soo degayno hadda wax weeyaan qaybtan hoose ku dhufo add render halkaan kale markaa ku dhufato meeshan gratso logo wixii aan soo sameeyay marka hore halkaan oo midka cusub ee nagu soo kordhay
qaybtan ay ku qoran tahay paste ku dhufo halkan paste haday ku tahay qaybtana full tahay waxba ka bedelin okay dheh halkan ugu hooseysa loss waxaad ka dhigaysaa qaybtan oo IVA qaybtan quick time halkan oo kalena waxaad leedahay sida u da RGB gana ahaato RGB plus alpha ay markii transparent muuqaal laga dhigayo ayaa la doortaa okay oo kala dheh halkan oo kale magaca meesha dhigan lahayd weeyaan folderka ayaa dooranaysaa kadib waxa leedahay okay halkan kadib waxa leedahay render okay bas hadda wuxuu bilaabi doonaa marka inuu kugu shubo kadib marka ilaa iyo adigu sikimo yar ama daqiiqado yar ayuu qaadan doonaa kadib marka sidaas ayuu kugu soo gali doonaa computerkaaga kadib marka folderka aad dhigato kale halkan oo kale meelahan oo kale ayuu ka tusin doonaa hadda kale waaba soo arkay folderkii meesha dhigtay ama magacaas hadaad search garaysay xataa waad arkaysaa halkaas ayuu ku eegaya casharkeennii casharadii xigana la soco kuwii horena soo daawo sidaas iyo nabadiin